barnaamijkani ayaa wuxuu daawadayaal ku saabsan yahay heshiiska ay kala saxiixdeen dawladda Soomaaliland iyo Khaatumo waxaana heshiiskaasi labada dhinac qalinka ugu kala duugay oo u kala saxiixay wasiir dawlaha wasaaradda arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Maxamed Mixile Boqorre sidoo kale isna waxa dhinaca Khaatumo heshiiskaasi qalinka ugu duugay Maxamuud Sheekh Cumar Xasan oo isagu ah gudoomiyaha Khaatumo heshiiskan 8 qodob ka kooban ayaa wuxuu ka dhacay hotelka Sheraton ee caasimadda Djibouti intii socday heshiiskaasi u dhaxeeya Soomaaliland iyo Khaatumo ayaa waxa qayb weyn ka qaatay safiirka Soomaaliland u fadhiya dalka Jamhuuriyadda Djibouti Ambassador Cabdifataax Saciid Axmed markii heshiiskaasi 8 qodob ka kooban ay kala saxiixdeen dawladda Soomaaliland iyo Khaatumo ayaa waxa ugu horeyntii hadalka furay safiirka Soomaaliland u fadhiya dalka Jamhuuriyadda Djibouti Ambassador Cabdifataax Saciid Axmed halkan waxaan wada fadhinaa guddigii wada hadallada oo runtii doorkii saddexaad imika ah shirkan oo runtii bilaabmay bishan 25keedii aan ku jirno soo gabagaboobay 29kii shalay maantana go'aamadii laga soo saaray qodobadii lagu heshiiyay labada dhinac runtii waa arrin waxaan leeyahay reerayn leh farxad leh shacabku meel ay joogaanba gudaha iyo dibadba waxaan jecelnahay runtii inaan u mahad celiyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geele mahad gaar ah maadaama gogasha noo fidiyay runtii mar hore iyo mar dambaba runtii aad baan ugu mahad celinaynaa guddida waan u mahad celinayaa runtii waqtiga badan gelisay ilaa adisaba hawshan soo waday labada dhinacba runtii ka kooban runtii waxaan leeyahay hawl muhiim ah taariikhdan meel bad ka gali doontaan haddii Ilaahay idhaa iminkana waxaan ku soo wareejinayaa xubnaha guddida qaybta hore ee Khaatumo gudoomiyaha ayaa waxa ugu horeyntii hadalka furay Maxamuud Sheekh Cumar Xasan oo ah gudoomiyaha Khaatumo bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan maanta halka kan ku wada fadhinaa kuna baahinaynaa go'aamadii aanu ka soo saaray shirka Addis Ababa labadeedii guddida wada hadallada Khaatumo iyo Soomaaliland magaalo madaxda Djibouti iyadoo uu ka noo soconayay muddo 6 maalmood ah runtiina aan aad iyo aad annagoo ugu mahadinayna dawladda nambarti gelisay iyo madaxweynaheedaba aadna u soo dhaweynayna go'aamadii aanu halkan ku qaadanay isna aanu isnaanahay madaxweynuhu isna uu ku guuleystay inuu isu kaayo keeno oo aanu dalkiisa shirka ku qabsano oo wax badan uu noo fuliyo oo noo dabciyo wada hadalka iyaga iyo xaajaysiga iyaga annana ay meel fiican noo marayso maantana ay noo soo baxayaan oo hadda la akhriyo doono 8 qodob oo aanu ku heshiinay maanta halkii aanu kii Addis Ababa 11 hore kaga heshiinay maantana 8 qodob oo aanu ku heshiinay Soomaaliland ayaan cadeynaynaa waxaan rajaynaynaa insha Allah bismillaahi kariim mustaqbalka inaan u sii gudbi doono guulo badan oo horumar leh insha Allah bismillaahi kariim waxaasna hadalka qaatay oo qodobadii uu ka koobnaa heshiiskaasi ay wada galeen dawladda Soomaaliland iyo Khaatumo saxaafadda u akhriyay wasiir dawlaha wasaaradda arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Mixile Boqorre intaana qodobada akhriin sidaa la sheegay gudoomiyaha qaybta Khaatumo anigoo ah wasiir dawlaha arrimaha dibadda oo gudoomiyaha guddida ka socotay dhinaca Soomaaliland waxaan aad ugu mahadnaqayaa ilaahay baa mahadle madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Geele oo noo suurtageliyay halka kan inaan ku jirno tiraba 2 goor maanta markii labaad tahay wax walba noo facilitate gareeyay
waa intuu dadka naga xigay intaasina ayaan leeyahay aad baan ugu mahadnaqayaa waxaa kaloo aad ugu mahadnaqayaa safiirka halkan u jooga Somaliland Cabdifataax oo labadeeda gruuba si xilkasnimo ugu shaqeynayay oo saacadna naga faariqin oo aad iyo aad magaranaysaa isagana mahad gaar ah celinayno kolkaan u daadigo qodobadii aanu ku heshiinay labadayadii gudi ee halkan isku yimid waxaanu ku heshiinay shirku inta 25 ilaa 29 buu soconayay oo halkan ka bilownay waxaan ku bilownay jawi qurux badan waxaana ku dhamaysanay safgarad aad u qurux badan oo aad u wanaagsan oo walaalnimo waxaana ka soo saaray 8 qodob 8 qodob ee ka soo saaray waxa number 1 ah waxa la isla qaatay in si sugan looga wada shaqeeyo arinta nabadeynta ee u dhaxaysa beelaha walaalaha ee Bahararsame iyo Qayaad si buuxdana u taageerno iskuna garab taagno gudida nabadeynta ee hawsha gacanta ku haysa imika eedeeduna waxa weeyaan waa in wixii faragelin ah gudaha iyo dibadaba ee waxyeeleyn kara nabadeynta labada beelood meel looga soo wada jeesto qodobka labaad waxaan si buuxda la iskula qaatay in hawlaha abaaraha iyo horumarinta deegaamadaasi la iska kaashado si wada jir ah qodobka saddexaad waxaan si wada jir ah ugu baaqaynaa in hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ay ka wada howlgalaan dhammaan gobolada iyo degmooyinka ayna hore u tegin jirin halkaas oo ayna imika wax nabadgeliyo darri ihi ayna jirin loona sameeyo guddi wada jira waxa la isla gartay in maamul daadejinta aas u tahay nabad ku wada noolaashaha iyo kobcinta awoodda bulshada sidaa darteed waa in la gaadhsiiyo oo laga abuuro maamul iyo adeeg bulsho meelaha ayna hore uga jirin hay-adaha caalamiguna door weyn ka qaataan hawsha iyada in meel loogu number 5 in meel looga soo wada jeesto wax kasta oo caqabadayn kara hanaanka wada hadalka ee labada dhinac number 6 in wixii dhiig iyo dhaqan ku saabsan lala kaashado golayaasha dhaqanka si wada jira number 7 waxa la isla qaatay in gudida farsamada soo diyaariso qabashada shirka dambe ee kan ku xiga soonad cayimaan goorta iyo goobta sida ugu dhaqsaha badan qodobka 8aad waxa la isla qaatay in yoolka wada hadalladeenu uu saldhig u yahay is-aaminad wada shaqayn nabadgelyo horumar dhan kasta بسم الله الرحمن الرحيم runtii maanta taariikhdu tahay san horeba u sheegay 30kii bishii March shirkan oo bilowday 25kii March shalayna soo gabagaboobay maantana saxiix ah 8 qodob lagu heshiiyay runtii wax aad loogu farxo weey waxaan rajaynayaa shacabka Soomaaliland gudaha iyo dibadba in arrin ku farxi doono maanta shirkaas oo ka soo baxay shacabkana waxaan leenahay maanta guul baynu taaganahay dad walaalaynu nahay dad waxaynu nahay runtii isdhalay gacal ah Soomaaliland runtii gacmaha isqabsano ayaa muhiim maanta waxaan runtii leenahay cadow badan oo gudaha iyo dibadba leh marka maanta arrinkan waa arrin guula insha Allah waxaan jecelnahay dhawaan wixii kale yara harsanay in la soo dhameystiro marka arrinka sida runtii aan maanta ku heshiinay lagu dhaqan galiyo hadii la hayda waxa waliba si gaar ah aan mahadda u celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland marwada koowaad xukuumadda oo dhan golihii baarlamaanka runtii iyaguna runtii ansixiyay in shirkan uu sii socdo madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti iyo marwadiisa iyo xukuumadda runtii aad baan u mahad celinaya maadaama ay runtii ay noo fidiyeen gobashan mar hore imika runtii waxaan leenahay aad iyo aad mahad weyn ilaahay baa mahad leh inaan runtii u mahad celinay iyagana taariikhdana runtii way u gali doontaa jamhuuriyadda Djibouti madaxweynaheeda iyo xukuumaddaba Soomaaliland runtii madaxweynuhu wuxuu ka tagi doonaa
arrin taariikhiya oo runtii lagu xusuusan doono haddii ilaahay ilaa mustaqbalka dhow iyo ka fogba raggii halkaa shirka ka soo wada qayb galayay runtii waqti badan juhdi badan geliyey sidaas ilaga anagu safaarad ahaan runtii qayb waxaan ka qaadanay habeenii maalinba facilitation saan ugu samayn lahayn runtii waxaan rajaynaynaa arrinkaa in halkaa laga sii wado waxaan ugu baaqayaa dadka Soomaaliland ee gudaha jooga iyo dibaddaba inay runtii ka waantoobaan waxyaabaha carqaladaha gelin karaya wada hadalladan iminka bilowday ee sida wanaagsan ku dhamaanaya inay runtii iska ilaaliyaan ka foojignaadaan dad badan baa jira aan runtii jeclayn waan ognahay dadka waxaan leenahay ilaahay idin soo hanuuniyo ilaahay idinku toosiyo wadada wanaagsan ee wanaaga ee kala gacaylka ee nabadgelyada leh ee dadka walaalaha ah inaad idinkuna ilaahay waxaan ka baryaynaa idinku soo toosiyo caqligiina ilaahay runtii oo tuso wanaaga maanta halka lagu saxeexay 8 qodob daawadayaal waxaa barnaamijkan idiin soo diyaariyey anigoo ah Maxamed Jaamac Waale inta aynu ku kulmano barnaamijkan mid lamida waxaan idinkaga tegayaa sida iyo nabad Thank you.